السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada saaxiibayaal. falsafada Kaizen istaraatiijiyad ay isticmaalaan inta badan shirkadaha Japan sida Toyota adiga shakhsi ahaan aad isticmaali karto si aad u xaqiijiso silsilado guulo la taaban karo adigoo waqti yar laakiin joogto ah ku bixinaya. Kaizen waa farsamo uu isticmaali karo shakhsi, shirkad iyo dawladba taasoo ku dhisan samaynta horumar joogto ah. muhiimadda ay leedahay darteed waxaad arkaysaa dad badan oo sharaxaya farsamadan. أردت أن ألخص رسالة خواطر عبر ال10 سنوات الماضية تلخص في كلمة كايزن. It's a principle of the Japanese philosophy of lean production called Kaizen. Well, Kaizen is actually a Japanese word, and it has two parts. There's Kai, which means change, and then Zen, which means good. ereyga Kaizen waa erey Japanese ah oo ka kooban laba erey oo kala ah Kai oo macnaheedu tahay isbedel iyo Zen oo ah wanaagsan ama wanaajin. marka la isu geeyana noqonaysa samaynta isbedelo yaryar oo joogto ah. tusaale, waxaad rabtaa inaad si cusub barato, aan dhahno luqad cusub. intii aad maalmo ama usbuucyo wax badan isku daalin lahayd inaad barato, kadibna aad usbuucyo ama bilo kadib joojin lahayd oo aad ka cajis lahayd, waxa kaaga fiican inaad maalin walba waqti yar sida 5 ama 10 daqiiqo siiso barashada luqadaas. waana sida ay farsamadan Kaizen ku dhisan tahay. haddaba maxay qasab u tahay in farsamadan Kaizen aan ku dabaqno nolosheena? runtu waxay tahay in dhammaanteen aan rabno isbedelo waaweyn oo degdeg ah, waana waxaan suuragal ahayn. inta badan waxaan dejinaa yoolal waaweyn oo ay adag tahay in la gaaro, taasoo keenta niyad jab. laakiin farsamadan Kaizen ayaa xal u noqotay mushkiladaas inagoo xoogga saarayna tallaabooyin yaryar oo la maarayn karo, naftana aysan dhibsanayn si aan u abuurno isbedel waara. dhalashadii fikraddan Kaizen goormay ahayd? yaase iska lahaa fikraddan? kadib dagaalkii labaad ee adduunka waa la ogaa xaalka dalka Japan, dal lagu garaacay hubka nuclear-ka si ba'ana loo burburiyey, dal aan lahayn kheyraadka dabiiciga ah sida shidaal, macaadin iyo xitaa beero, laakiin sanado kooban kaga soo kabtay dhibka intaas leeg. haddaba Jabaaniisku waxay raaceen falsafadan Kaizen oo uu horumaryanin lagu magacaabo Masakai Inai. waxayna ku dhisan tahay falsafadan inay macquul tahay xaqiijinta guul walba iyadoo la samaynayo isbedelo yaryar oo joogto ah. muhiimadda farsamadan ayaa ah inaad wax walba u isticmaali karto hadday ahaan lahayd horumarinta xiriirka kaala dhexeeya rabbigaaga, shaqadaada, caafimaadkaaga iyo guud ahaan horumarinta naftaada. su-aashu waxay tahay sideen u dabaqi karaa, sideen ugu dhaqmi karaa farsamadan? dhaqangelinta shakhsiyadeed ee farsamadan waxay u baahan tahay keliya 3 tallaabo. tallaabada koowaad waa inaad aqoonsato ama aad doorato shay noloshaada ka mid ah oo aad rabto inaad horumariso. tusaale, waxaad ku dhiban tahay salaadaha inaad ku tukato waqtigooda, waxaad leedahay dabeecad ah inaad hurdada ku daahdo subax walba, ama waxaad rabtaa inaad barato xirfad cusub. waxay ahaataba, dooro shay aad rabto inaad naftaada ka beddesho ama aad ku soo kordhiso. tallaabada labaad, markaad aqoonsato ama aad doorato shaygii aad rabtay inaad diiradda saartid, u kala qaybi qaybo yaryar. tusaale, waxaad rabtaa inaad hagaajiso xiriirka rabbigaaga kaala dhexeeya. salaada ka bilow, waayo salaada waa xarigga keliya ee idin dhexeeya adiga iyo rabbigii ku abuurtay. waxaan kaloo kugula talinayaa farsamadanna ay qabtaa ku tukashada 5 salaadood waqtigooda aad xitaa kala qaybiso, oo aad salaadaha maalintii sida duhurka, casirka iyo maqribka aad ka bilowdo, ilaalisana waqtigooda. muhiimaddana waa inaadan ka cajisin oo aad aayar u dhammaystirto. tallaabada 3aad ee ugu dambaysa, isla xisaabtanku waa muhiim marka laga shaqaysiinayo farsamadan Kaizen. naftaada xisaabi oo haddii ay guulaysato abaalmari, haddiise ay guuldaraysato ciqaab. qaabka ugu fiican ee lagu taliyo waa inaad isku xirtaa qof ku wanaagsan waxa aad doonayso. tusaalihii hore, waxaad rabtaa inaad xiriirka adiga iyo rabbigaaga wanaajiso. isku xir oo la wadaag hamigaaga qof xiriir fiican la leh Eebbe subxaanahu wa tacaala, salaadahana jamaaca ku tukada. rasuulkana Muxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee oo la siiyey jawaamic al-kalim oo ah kelmad ama sadar inuu xambaarsan yahay macno badan, ayaa waxaa laga wariyey xadiis macnihiisu ahaa acmaasha Ilaahay agtiisa loogu jecel yahay waa kuwa la joogteeyo. farsamadan Kaizen ee aan hadda ka sheekaynayna waxayba ku dhisan tahay hawl yar oo joogto ah. waxaa xaqiiq ah oo la ogaaday in aad guul gaarto waxa ka adag inaad ilaashato oo aad ku sugnaato guushaas. runtii waxaa jira shirkado badan oo sannado ahaa shirkadaha ugu wanaagsan caalamka, laakiin ku guuldaraystay inay ku sugnaadaan guushooda, sidii shirkadda Nokia oo ku dhowaad 20 sano ahayd shirkadda looga dambeeyay soo saarista taleefanada gacanta, laakiin waxay ku guuldaraysatay farsamadan aan maanta ka hadlayno ee ah joogtaynta isbedelada yaryar. suuqa ayayna ka baxday. aad ayaad u mahadsantahay haddii aad intaan ila soo gaartay oo aad ila dhammaysatay farsamadan cajiibka ah ee Kaizen. waxaan rajaynayaa inaad tijaabin doonto kana faa'iidi doonto insha Allah. haddii aad ka hesho muuqaalka, like saar lana wadaag asxaabtaada kale. intaan ku kulmi doono mawduuca xiga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.